السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا أقوان دون channel وعشر كيني سدحاد مادة جافا سكريبت وحانا اوغهد لدونا جافا سكريبت variables. هدبا ومحي variable si fudud variable waxaan dhihi karnaa waa meel kaydsiin ama waxaan dhihi karnaa waa magacaan u bixino halka aan rabno inaan wax ku kaydino. Variable-ka waxaa loo qaybiyaa labo. waxaa jirto variable la dhaho local variable, sidoo kale waxaa jirto variable la dhaho global variable. labadooda farqiga u dhaxeeya wuxuu yahay local variable-ka waa variable laga dhex adeegsado functionka gudihiisa ama variable-ka aad ku qeexanaysid functionka dhexdiisa. sidoo kale global variable-na waxaa waaye variable-ka aad ku dhex qeexan karto functionka gudihiisa iyo banaankiisa labadaba. waxaadna awood u leedahay halkaad rabto inaad ka isticmaasho variable-kaas. marka aad rabtid inaad qeexatid variable, waxaad u baahan tahay inaad ogaato xeerarkan. ugu horeyn, magaca waa inuu ku bilowdaa xaraf. xarfaha waxay noqon karaan A to Z. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa calaamadda underscore ama $sign. xarafka ugu horeeyo waxa ka dambeeyo waxaad adeegsan kartaa tirooyin 0 ilaa 9 ah. tusaale ahaan waxaad dhihi kartaa value number 1 ama qiimaha koowaad. JavaScript variable-adeeda waxaa la dhahaa waa case sensitive oo laga wado variable-ka x small iyo variable-ka x capital labadooda waxay yihiin laba variable oo kala duwan kala madax bannaan. waxaan si faahfaahsan ugu fahmi doonaa qaybta practical-ka aan isla aragno. waxaan sii isticmaalaynaa JavaScript file-kii aan horay u samaysanay. waxaa xusid mudan haddii aad rabto inaad variable declaration samayso ama qeexato, waxaan cashirkeenii koowaad uga soo hadalnay updateskii ugu waaweynaa ee JavaScript ay martay. waxaa la qori jiray var, kadibna waxaa la isticmaali jiray qiimaha aad rabto markaa inaad variable-ka u dhiibato. balse ES6 iyo wixii ka dambeeyey waxaa laga guuray var, waxaa loo guuray let iyo const. aan isla aragno marka qaabka loo isticmaalo. ugu horeyn waxaan ku hormaraynaa sidee loo qeexdaa variable. way sahlan tahay. marka hore waxaan isticmaalaynaa waxa la dhaho let, kadibna waxaan samaysanaynaa variable name. tusaale ahaan waxaan leenahay x oo ah variable name-ka ha la mid noqoto 5. kadibna waxaan ku soo xiraynaa semicolon. waxaan leenahay save. waayahay qiimahan aan samaysanay ama variable declaration-kan aan samaysanay sidee calling ugu samaynaynaa ama aan ugu wacaynaa. variable-ka qiimaha markaa u dhiibano waxaan u baahannahay markan inaan variable-ka ku samayno calling ama aan u wacno si aan u helno qiimahaas. ugu horeyn waxaan adeegsanaynaa console.log. intaa markaan qorno waxaan furaynaa oo xiraynaa bracketka gudihiisa waxaan ku dhex qoraynaa x. waxaa muuqato x-taan isticmaalna inay tahay capital. haddii aan x small isticmaalno wax variable ah nooma soo bixi doono. kadibna waxaan ku soo xiraynaa semicolon. waxaan leenahay save. halkan kama arki karno, sidaa darteed waa inaan helnaa console-ka. waxaan leenahay right click, kadibna waxaan adeegsanaynaa inspect. waxaan aragnaa halkan inay inoogu soo baxday 5. qiimahan 5 waxaa inoo xambaarsan variable-ka x. qaabka variable-ka u shaqeeyana waxay tahay x waa variable-ka aan samaysanay magacaan u bixinay. yz waxaan rabnaa dhihi karnaa. 5na waxaa waaye qiimahan x ay inoo xambaarsan tahay. waxaan ku daraynaa tusaalooyin kale. aan isla aragno. markan waxaan adeegsanaynaa string ama qoraal. qaybaha dambe koorsada ayaan si faahfaahsan ugu fahmi doonaa. haddii aad qoraal isticmaalayso waxaad u baahnaan doontaa inaad hesho quotation. sidaa darteed fname hala mid noqda ayaan leenahay jaamac. kadib waxaan ku soo xiraynaa semicolon. waxaan leenahay enter. waxaan u baahannahay variable-kan qiimahaan u dhiibanay waxaa waaye jaamac. sidaa darteed waxaan rabnaa inaan soo daabacno. waxaan leenahay console.log. intaa markaan dhahno waxaan furaynaa oo xiraynaa bracket. halkan waxaan ku qoraynaa statementiga aan rabno. tusaale ahaan waxaan isaga qoraynaa hello. kadib waxaan leenahay comma oo waxaan u wacaynaa qiimaha fname. waxaan ku soo xiraynaa semicolon. kadibna waxaan leenahay save. halkan waxaan aragnaa waxaa inoogu qoran hello. sidoo kale waxaan u wacnay fname. fname-na waxay inoo sidaa ama inoo xambaarsantahay qiimahan oo ah jaamac. waxaan rajaynayaa in cashirkan si aada loo fahmay. inta aan ku kulmi doonno muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgeliyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.